السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Kumbil Cabdishiid Barkadle. waxaan dhigtaa jaamacadda Jamhuuriyadda University. waxaan ka bartaa Faculty of Computer Science ama AT-ga. Alxamdulillah waxaan fursad u helay inaan ka mid noqdo ardayda Kaafi Technology Center anigoo ka baranayo web application and web development. Alxamdulillah maanta waxaan fursad u helay inaan meeshan kusoo bandhigo website real estate ama si loo yaqaan guryaha online-ka ah. Waageen waqtiyada hore qofku markuu rabo guri inuu iibsado waxay ku qaadan jirtay waqti badan, laakiin hadda adduunku wuxuu noqday digital. marka sidaa darteed ayadoo teknolojiyadda laga faa'iidaysanayo maanta waxaan sameeyey website real estate oo qofka isagoo gurigiisa jooga uu guri dalban karo. insha allah waxaan isla fiirin doonaa qaabka website-kiga u sameeyey anigoo isticmaalaya luuqadaha HTML iyo CSS. website-kiga waa real estate website, wuxuu ka kooban yahay 4 page oo isku xiran. sidoo kale waxaa jiro 4 page hal page oo ku xiran yihiin oo CSS ah. marka website-kiga home page oo kale haddaan isla fiirino, home page waxaan ku sharaxayaa waxyaabaha uu website-ka guriga oo sawirro uu ku tusinayo guriga online aad ku iibsan kartid. sidoo kale meeshan waxaa noogu muuqda sababaha iyo website-ka aan ku dooranay waa just as. marka meeshan waxaa noogu muuqda sawirro oo qof guri gadanayo iyo guri la iska iibinayo. sidoo kale meeshan waxaan kusoo bandhignay video kaasoo noo sheegay real estate website ama guryaha online lagu kala gadanayo. sidoo kale website-kana wuxuu leeyahay qayb oo about ah wax ku saabsan. qaybtaas about waxaan kusoo bandhignay dhowr image oo noo sharaxayo real estate website. sidoo kale meesha waxaa ka marneen footer-ka kaas oo kusoo muujinayna taariikhda iyo copyright-ka website-ka inaan aniga leenahay. sidoo kale service oo ah adeegyada website-ka bixiyo. waxaa ka mid ah adeegyo bixiyo guri inuu kaa kireeyo, sidoo kale inuu guri kaa iibiyo. marka meesha waxaa nooga muuqdo bottomada way shaqeynayaan. haddii aad dhigto hadda bottomkan Far Now wuxuu kuu geynayaa qayb contactiga oo kala soo xiriiri karto qofka markaa guriga gelinaysa. halkaas informationkaa soo gashanaysaa, kabacdi meeshaas ayaa xogtaada soo gelinaysa, halkaas lagaa soo aqbalayaa. submit baa leedahay. sidoo kale qaybta contactiga waxaa noogu yaallo website, waxaa noogu yaallo WhatsApp number kaasoo aad usoo dhufanaysid, kabacdi wuxuu keenayaa qofka oo guriga kaa kaleynaya, halkaas kala soo xiriiraysaa. qaybta u dambeysana waa contacti oo qofka userka xogtiisa soo gelinayo, kabacdi markuu soo dhameeyana wuxuu leeyahay submit buu soo dirayaa. intaas website-kana ku saabsan yahay.